sharciga NATO waa sharci waqti badan aan ka fikiray waa sharci waqti badan aan dawladda Kenya madaxweyne Uhuru Kenyatta aan dhahay tilaabo ka qaata sharcigan muxuu ku salaysan yahay sharcigan wuxuu ku salaysan yahay أنا وحنا هرت nin maartay maadaama culimada ku xiran yahay aaminsan inay bulshada qaybtii haatabo ay noqoto bulshada lagu dhiso bulsho diini ama haato bulshada islaamka ama bulshada kristaanka haddana sharciga wuxuu ku salaysan yahay waxa ka jira wadamo fara badan dhowr iyo wadan waxaan arkay konton wadan oo wadanka ay ka mid tahay wadamada muslimiinta Sacuudiga Imaaraadka Qatarka wadamo fara badan hatta Uganda iyo Rwanda oo u ogolayn in internetka la geliyo arrimaha diinta ee ogolayn oo wasaqda ah oo maanta cunugaada 14 jir gabadhaada ama wiilkaada haday mobile wadato waxay fiirin kartaa dad qaawan dad wax xun sameynayaan ayay ka fiirsanay marka cunuga aad diinta bareysay oo dabeecad fiican bareysay oo diinta aad bareysay waxa fatahaad ku noqonaya internetka صح waxa kaloo jirta oo lagu caruurta waxa lagu baraa bulshada waxa lagu baabiyaa mukhadaraadka waxa lagu caruurta waxa lagu keenaa internetka صح ama baraha bulshada so ani sharci hada aan keenay waxa weeyo sidii wadanka China iyo Dubai iyo wadamadaas aytu inay dawladda sharciyan aan mariyo baarlamaanka oo waxaas la fiirin karin so sharciga sida aaminsanahay dadka diinta aaminsan oo nadiifka ah oo rabaan caruurtooda iyo familkooda inay ku soo koraan dad diiniyan ah ama Kiristiyaan ama adaan muslim horta ani gacan ay u siinay maantana waan arkaa nin kasta gacan ay u siinay laakiin kollo waxa ila dagaali doonaan nimanka waxan jaafuga ka ganacsada waxaan kaloo ku daray markasta waxaan lagu dacweeyaa dhalinyaradeen lagu dacweeyaa argaxsaatihiin waxaad gasheen website ay leedahay kooxaha argaxsada taasna waxaana dawladda Kenya sharciyan xog qasban tahay inay xirto wixii website oo dadka argaxsada ay leeyihiin